السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا كنا سو دوادا channel Romani Media. Magaciiguna waa Abbas Mustafa. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa dariiqa dheer ee Shiinuhu dhisay. Intaan muuqaalka ugu gudagelinne, like saar fiidiyogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-kana dad badan gaarsiiyo. Dariiqa dheer ee Shiinaha waa dhismaha ugu weyn ee abid ee bini'aadan hindiso ama dhiso intuu jiray muddo laga joogo 2700 sano ka hor ayaa markii ugu horeysay la dhisay. Waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu cajiibsanaa ee aadamuhu qabtay intuu jiray. Boqortooyadii ka jirtay xilliga dhulka Shiinaha ayaa la sheegaa in markii ugu horeysay dhistay oo dhismihii ugu horeeyay waxa uu qaatay muddo 20 sano ka badan. Ujeedada loo dhisay ayaa ahayd boqortooyadii oo xindaab ka dhigaysay iyadoo ka baqaysay weerarka iyo soo galootiga badan ee soo aada. Dhererkiisa guud waxa uu ka badan yahay 21,000 kiiloomitir. Waa dhismaha ugu dheer dunida. Dhererkiisu waxa uu ka dheer yahay intay isku jiraan labada cirif ee dhulka oo ah 12,000 kiiloomitir. Waa mid isku soo laablaama qaybtiisa aysan ishaysan oo aad u cajiib ah oo inta badan waqooyi bari Shiinaha ku hareeraysan. Taariikhyahanadu waxay xusaan boqortooyadii Mingis ee jirtay inta u dhaxaysay qarnigii 14aad ilaa 17aad inay intiisa badneed dhisneed. Sanad walba waxaa booqda in ka badan 10 milyan oo dalxiisayaal ah, taasoo ka dhigan in maalinkii 100,000 oo qof wax ka badan ay booqdaan. Qaybta ugu caansan ee loo yaqaan Badaliin waxaa booqday in ka badan 300 oo madaxdii caalamka soo maamushay iyo dad kale oo magac leh. Sanadkii 1987 ayay UNESCO ku dartay liiska dhismayaasha qadiimka ah ee u diiwaangashan, waana mid ka mid ah 7 dhisme ee mucjisada ah ee caalamku leeyahay. Dadkii hore Shiinuhu waxay aaminsan yihiin in darbigan laga arki karo ilaa dayaxa.